الدولة دي هرج جرتي كون سجال بقول سديتن يسجالك وضياشو ويقرنا لكن اللي يرضوا وقت يسوع عليه قاركود إنه جدال دشان يا وحاجة مقال المقدس وحكى داعي نين أو بادري إيه يا للدلي كان يصدقنا اللي قدلي مركي للدلي وحي الدلي لما يقانيه وحلو ساري مركا ودادات دلالي وسديتن يسجالك ودادتي مركز هرجوج وها أمدا أيال الحرحري أو كم ده شعب الشيش على الصوفية كم ده هاين أيال الحرحري مركي الحرحري ما أنتوا جماعة وكلا يا بنام بحيو كاسب البلارة إيو يا مساجد كم مركي جماعة اللي تكذا أيال الصباح إذا ما دي الدولة ده نبت سجود دي إيو كوفيد عصي أيونا يصبح برونة يصبح حسن دتك ولا حب ذي وحلا ضاوع والك الإريدتك ومالين جماعة يا وسديتني سجالك جمعة دي سبت دي كحكتي جمعة سبت كل حكتي موقتها حمل ممكن مظاهرات كاس كداعي أنا بيدان جوجني بيدان مظاهرات كلا كسمهني تضامنا مع العلماء علماء الحرحري أنجو تاجرين مظاهرات كيا داعي بيدو يقان ماشي أفريدوتك أيال السوي مذا صور كمحمد زياد برمش كل جنا الجيبي ودقال باش مظاهرات اللي كسمه عسكرتي بوليس كلا كياني ولا كالإري تك قلبتي أمسك صور نقوني مركز على يرد إيو مدير أو دليرة أو هذا dadkan مثلا أنا فوق مركز waxaan dhiganaa dugsiga sare asoo dugsiga hoose iyo meelahaas ah yaa koo wuxuu diiwar adiga waxa la isku haystay ma taqaan adiga dawlad iyo waxbay xirtay iyo culimaad la xiray waxa laga wado ma taqaanide mudaharaadkan oo ku jirtay waa qaybaad ka ayade su'aal weydii maxaad u socotaa adiga waa ku yarada ku weydiinay uu fikiray magaas ana may ko diintii la hoojiyay وحنا واحد الأسبوع يستأني موجود أرض لكن دينتو من حوجنا يعني دينتي بالسوق قالين بالها ودينتو من قرب سينا يموجي واحد الأسبوع يستأني موجود أنا ما يكون ولا هو دينتي اللي هو جاي خلاص أوكي وطن كان هيك دعان بلوجي يا كوم مسك هذا اللوجي جرو كسر يرى خفيفة يا قبائل كوالس قبائل موجتة قبيل كاتها هي وحبال يسديها وأنا قبيل وحبال يسود لاي قال مركز مال لو أروريي أو محيي مركز إن ضدك إن أما لقى أرجوستو أما قبائل كساس أو كلا سومالي وضد اسمه ده يعني ملك اليقانات أبتي عذير يحبي يسوي هنا ويسبحين جرين قف مركز مثلا هذه مثلا قبيل مال جوجا مركزي وأود يشو كواس أي كوا ده وحنا جرت كيدتك الله ينعيان أنت عقلاء وحفهم سن ويكعلنا أنت ضدك أروريان مال جيان اللي واحد الأسكاس والسياسة وكرسي أنا ما ضدك الله لما يلسكم وين marka intay ka celin karaan ay ka celinayaan kooxa marka meel lagu xareeyay loo ilaaliyo mid kooxdaas kamid ah oo maskaxda looga jiro oo qabiilka la dilaayo ya banaanka u baxay laamigu iska soo marmaray mid kuwa mooryaanti ah qabteen marka waraaya qabiilka tahay soo qabiilka la raadinayo la dilaayo uu kamid yahay qabiilku iska sheegtay qabiilkaasaan ah ha xageed ku jirteen ani iyo koox badan ba guriga aan ku jirnaa ani kaliya ma imalaysa ku badan inta ku xareysan صباحنا تصبح وصباح وسوكحي انتو نسوق جارين غورغي وبنانك سو سودلا وميسه كقيلي غبر سينب oo ku jirtay dadkaas yuu la hadlaay markaas wuxuu Seynabay waa li nafahmay soo baxa markaa waxaan leeyahay kuwa federaalka noo keenayo waalidin fahmay soo baxnimay Soomaali inaad waxba u haynin inaad isku dirtaan ma ogi markaa waalidin fahmay umadan Soomaali inay dib isugu tashato dagaal intay galeen yaa ilaa 6 saac oo gelin ka hor ay dagaal ku jireen wala dhaqaajin way gaalada ila dagaalayeen si alla si kasta haday yeeleen kaarta haday u bedeleen gaalada wala dhaqaajin way markii dambe isku soo laabteen way shuurayeen way tashadeen waxay dhaheen nimayo maxaan ugu dhacay saana lagu hor taagnaan jirin xageena laga haystaa midaa wuxuu niyo waxa ana fahmaysan laga haysto saaka salaas wax markaan tukanay in badan oo kamid ah dadku waxay ka gaari waayeen sunnadii oo cadayga siwaagi cadayshadii maadaama dagaal lagu jiray salaadin baa la tukaday iyadoo la cadaynin oo mashquulka lagu jiro ma dagaal ka hor laga galay marka cadaygii ayaan ilownay hadda sunnadii aan ka tagnay ee cadayga ahayd aan hadda cadayno ana intoos wixii dhacaayeen alla waa runtiis qof walba xali geedka adiga ku dhow laan ka gooso oo ku cadayo gaaladin xagay taagan yihiin oo dagaalku u socda dadkii oo geedaha ku arday oo mid ballaan ka jabsanay markay arkeen oo cadayanaya gaaladii weeyaan war dadkan maxay sameynayaan koox wuxuu maxay sameynayaan ilkiha idin ku cuni lahaayeen ay soo faysanayaan
oo wayba nucunaya hadday saas tahay war meesha fadhino ma yaalaan carna nimayo intaynu soo gaarin adaygii marka laga soo jeeso hal dhaqaaqliiba xagay sii ordayeen gaalada nasrigaas xagu ka imaaday noolayntii sunnadaas la nooleeyay sayidina umar wuxuu dhigi jiray asxaabtiisa markuu la dardaarmaayo laakiin haddana hore loo maahmaa waxaa leeyahay qof meel u socdo lama karo waxaa leeyahay lan sabtaha halaagsanto leh jima waana ma dhego sabtida qof dhiman raba oo la halaagi raba sabtida maanta soo jumca ma soo isma wacdinaayo khayr laga sheekeynaayo qof raba sabti inuu dhinto oo la halaago wacdiga maanta socda ma maqlaayo lan sabtaha halaagsanto leh jima waana ma dhego sabti lu ku tago dhiman maayne diga oo dadilaya maanta bish waa imisa dadkoo dhan saacad ay fiirin waxay ku dhig maanta ama mobile ku fiirina maanta waa 27 bishii 12aad 2019 hadii la weydiiyo bisha kale maanta imisa maraysaa hayay sug barabta xageen ku jiranta rabiicu thani miya ahayd meeqay maraysay waa inuu soo xusuusto ma garan karo bilahaas waxaynu xisaabinaa oo kaliya hal bil bishaas oo bisha ramadaanka bilaha kale ma ogin intay marayso laakiin ramadaan la gaaray ma la sooman yahay qofka soo weydiiso maanta soonku waa imisa 7 maraya oo kulay way xisaabantahay laana gaajo hays soonku ma dhamaaday bes halkaas ay naga egta soomaa idinka meesha idinkaga soo aadani waxay tahay inaad waqtiga ku fiirsataan kuwa waxay isku khilaafeen saacada midigta ma lagu xiranaa mise bidixda lagu xiranaa anay weydiinayaan waxaan nahay jeebka gashada maxaad kartaan idinka waa meeqa sac markii lagu dhahnay soo baxso waa intaas uu marka ama xagga saaro maxaa loogu talagalay saacad in waqtiga lagu fiirsado gaarto waxaa la yiraahdaa al-i'tizaaz bil mabda in lagu faano oo caga juglayn iyo indhagudiis aan loo ogolaan dadka qaarkii waa masaakiin waxa uga yar hadii la isira kuleeyo waxay ka tanaazulayaan mabaadiidi oo dhan waxay leeyahay anna waxaas ma ku jiro sidii kii mar baan sheegi jiray xildhibaano mar la xulaaya waxa la yiri adiga wadaadada ku jirtaa liiska waa laga reebay markaas war ani wadaadada maxay iga dana salaadaan tugta xataa goorma igu damis wadaadada sheegaysan maxay tahay marka hadii ay noqoto xaaladu saas oo kale oo mabaadiidi iyo qofku uu rumaysnaa oo looga leexin karo wax yar oo adduunye kaas qiimo male ninkii yaa socdo si la isaga gado gaalada si la isu tusiyo gaalada koox walba waxay sheeganaysaa oo ay ku faanaysaa oo la qarinaynin anay wataan Mareykanka iyo gaalada iyo anay wataan kii marka sheegtay in asaga la wato mar badan waan waxaan ku warmayo waxaas waa cayhays caayina kan dhahay yani Mareykanka ay wata waxaan maqli jirin dadka saaxiibada dhalinyarada baabuurka markii qof uu rabaniyo aroos iyo waxbaan leeyahay baabuurkaaga igu soo dar maxay ahayd arooska liila galbiye warniyo ani meelan aadahay furaan ku siinayaa baabuurka ma wadanaysa haaniyo furaha si ana wadanaya bas baabuurka li soo si baabuurkaas ana wata he baabuur la wato waa lisku ogaa laakiin qof dhan bini aadama waa li wata oo ma baabuur batay seel lagu wadanaya hebel baa ay wata in lagu wato yaa isku ogaa waxa la isku ogaa in aan lagu wadanin oo qof xor ah oo asagu ikhtiyaarkiisa leh oo maslaxada ummadiisa iyo wadankiisa dantiisa go'aankiisa gaari kara oo waxa u dambeeyay soo hadda lama lahayn kooxdan hadda joogta magacoodu waxa leedahay nabad iyo nolol Soomaa kooxda nabad iyo nolol hadda isugu aadan tahay waxay sameeyeen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihi oo isla jira guddoomiyihii maxkamadda sare oo ay keensadeen kii baarlamaanka oday jawaari ay qadaan qadiyeen oday mursal ay keeneen imisa isugu aadan guddoomiyihii baarlamaanka maxkamaddii sare madaxweynihii ra'iisul wasaarihi war wax yar u dhiman goboladii xaqooda la aaday bal goboladii ayana fiir goboladii inta waa laga teemootay gobolada la aaday intii gobolada lagu maqnaa xagga la aada xaggay hadana ka sii furatay gudoomiye baarlamaanka war maxaa maya waa kooxda ani ma kasin hadi kharash badan ku galay see waani adiga meeshan si lagu keenay see waadi warani meeshan odayana aniga beesheedan oday waa bal iskhilaaf xagga kale qolyo mucaarad oo bari iska maqnaa sheekh akhuuna Cabdiraxmaan iyo ayagana ay soo noqdeen waxa way halkiisuu ka bilaabay laakiin maalinka dhacdo sida inaga Soomaaliyeed nahay kursiga iyo madaxnimada maxaa la isugu leeyahay hadduu qof walba og yahay cadaaladdu inay gurigiisa ku soo gaarayso wax isku dhibi lahaa ma jirib waxa la dhigaa inta inoo haysa khayr Allah si haynoo wadeen laakiin markii la arkay inayna cadaaladdu guriyaha dadka ugu iimaanaynin
أو حالي بالماشى لو كركرينايو أكتر يعني لجاوين ومحا كربتها يمسوا جاريس مركا ماشي ولا مال دتك داخله معه والسويد بريا وحاجه لالي بريا او جادك la joojin jiray بريا جادك مكتب la joojiyo qofkii lagu arko dabargoynta qaadka dhigi jiray waa la mamnuucay guriga la wareegay liiro waad ogsoontiin dadka waashu yaqaana jaadka soo lama joojinin dadka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayilaan waa loo keenaa sidoo loo keenaa galabtii iyo habeenkii u fariisanayaan way qayilaan jaadka waa la joojiyay guriga lagu wareegay waxa la jaad lagu qabtay oday garsoore ah waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay uu diiwaan geliyay intay ahaayeen intii jaadka lagu soo qabtay waxa la marka faylkooda la soo cadeeyay baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo mar kale markii kale inta la gaaray xabsi markii lagu celiyay intii dawladda show kuwa ka agdhow isku reerka ahaayeen hoosta laga sii daayay intii kale baa hadana lagu soo celiyay maxkamaddii garsoore markuu yeeray hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo kuwii askartu weydiiyay wuxuu dadkii kale aaway ana gudoomiye waan soo kaadinayna intay dhaheen ayay baxsadeen masaasaha afmaameentu kula hadlay sheekh ana qaano halaw naxariis u dhintay intii maxaabiista kale ee meesha fadhiday ayaga aan la sii deynin yaa warqad intuu qoxay isiina baha kaadiya idinka bax soo kaadiyo hadii intii la soo kaadiyo iska baxsanaayo maxay idinka meesha ku haysaan kaadid ma ismiyay ordu idinka la soo kaadiyo uu sii daayay waana sax inuu sii daayo maxay laadaan loo sinayn sharciigi oo dadna la sii deynaayo dadna la ciqaabayo saas ummad kuma dhisanto waa lagu baabaa marka diinteenu waxayna baraysaa ummad markii raba in la dhiso wixii ummadda ka dhaxeeya in loo simeeyaa oo hadii dambi arintan ay ka imaanayso qofka ku wixiga waa inuu dambigaas haduu galo Soomaalina waxa lagu bartay ruux mar haday arkaan ma soo celinayaan marka bal hadda daanana nimayo kuwan jooga ma soo celinaa kuwa ku dhaay maxaafidaad tahay marka bal u kaadiyo waxaan fiirinaa yaani haday mar arkaan Soomaalidu qof ma soo celinayaan waad ogeed hadda madaxweynankii ka horeeyay 4 sano markay ka dhamaatay asagoo le warqabyo ninkeeda dhameystiray wax yiri kaadiya yaa waxa yiraahdo horta maxaad u qabiyeysay adiga u dhameyn weyd xaqya lagu dhameeyna waqtiga ugu yaraaba aniga hadda leeman fahmay oo sheekad meesha laga jiray maadii kaadisan maya nina waxa li diin wax ka day asoo afkii soo taagayo meeshu ka gali diinkii uu naxay gadaal isugu cishta markaas uu diinkii kaga dhigay meesha alla yaa iga fujiyo uu rafaaday midaa uu imaado wuxuu maxaa ku dhacay wuxuu diinan sitaa oo meel igaga dhagane meel uu diinka ka taabtay marka oo gadaal juq uu ka si intuu nuxuu dhigay diinka dhulku ku dhacay meeshu dhila waa mahadsantaa wuxuu dhahay alla waligii muxuu diin waxeeyay kan maligi suu yaqaan farsamada marka meesha waxa socda doorashooyin la isla bartay waxa la isku haleyn waayay lacag kasta oo la bixiyo warniyo lacagta taan bixino waan bixinaynaa laakiin dadweynaha iyo baarlamaankan iyo dadku dhagay qabaan waa la wada hadlayaa wixii waa la isla fahmay ciyaartii lacagtii dhamaatay boqolkiiba boqolna la iskuma hubo waa lagu dhaaran hadii la rabo codka waan ku siinayaa ku soo dar ani waa diyaar laakiin adiga qolka markii la galayo gacanta ma qaban adiga qofkii gacan ma la qaban karo natiijo aan la sii aqoonin waxay ku dhamaanayso ciyaartaas lama geli karo ciyaartaas muqaamaradaas waxa liimaya ninkii juxa ah yaa laanta uu ku fadhiyo ayuu meesha geedka uga dhagan tahay ayuu goynay markaas nin soo maray wuxuu war meeshan way kula dhici doontaa geedka meesha aad ka goynayso ha ka goynin wuxuu isee waaban ka fogahay aniga halkaas aan ka goynaa xaqan ka saarnaay war waa meesha geedka ka dhagan tahay geedka dad laanta meesha ka goyso way kula dhacaysaa joog markaas wuu ku waday wuu gooyay laanti dhulku ku dhacay ninkii wuxuu la yaabay run badnidiisa wuxuu niyo adiga waa wax khatar baaba tahay laantan inay la dhici doonto waa ninkii sii sheegaa tahay goormaan dhiman doonaa markaas wuxuu waxa dhiman doontaa markuu dameerkaagu qayliyo markaas aad dhimanaysaa dameer oo rarkii laga furay soo ma qaylinayo markuu rarkiisa uga furayba dameerkii qaylu la baday uu gagadoomay dhulku isku rafiyay juxa wuxuu khalaas calaamadii waata ninka daay laanta ila gooyay oo la kula go'aysa calaamadii dhimashadeedu ku sheegayna waan u jeedaa dameerku uu qaylinaya meel intuu isku duuduubay ayaa wuxuu niyeystay inuu dhintay qof safar soo maray wuxuu niyo magaaladan rabaa xagee loo maraa wuxuu hadda anigu waan dhintay markaan noolay xagga la mari jiray marka si ayna saasoo kale u noqonin oo sanad walba daadada soo rogmaday aanan uga haynin laanta meesha laga goynaayo waa loo jeedaa
yaan laga goynin meeshuu ka soo fatahayana yani lacag kasto ay u baahato Soomaalidu baa ka badan haddii si kasta loo qorsheeyo intaas ku baxaysa oo in yar la isku dardaro Soomaalidu baa ka badan waana la hagaajin karaa marka balantaasna waa kala soo dardaaranay waan insha Allah taala qorshaheedana waa la imaan doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadeen dhibaatadaas ka qaado waxa la qori aad jabisay qajaftiisa laga manax waxay noo soo saareen sheeko la yiraahdo xildhibaanow marka wax doorasho la gaaro wax la dooranayo haddii lacag ay ku keenaan kuwa murashaxiinta in la doorto raba lacag ay ku keenaan kulligood waad ka qaadanee adiga iska dhigin nin wadaad oo Ilaahay ka cabsanayo oo aan hal nin aan ballan ka qaaday mid kale aan lama hadlaay dabalati adiga saas ma oo maxaa la sameeyaa lacagi waa qaadasho codkuna waa qarsoodi ma saasa ha qaacida la inoo sameeyay muttafaqun calayhi su'aal isku raacay maxaa isku lacagi waa qaadasho codkuna waa qarsoodi waaya markaas madaxweynayaashii oo dawladda dhexe ayaa waxa lagu bartay oo darsi fiican laga qaatay mid kasta inta hadda bariga hore moogtahay saan ma inayn sheekado ma kulan jirin kuleelkan dambe markuu imaaday oo madaxweynaha aad ugu tartamay madaxweynayaashii hore iyo kuwa hadda joogay oo kulli xildhibaano badana lacag ka qaaday codka markii la gaarayna tiradii uu isku darsaday ee liiska ugu jirtay ma ayna soo bixin niman yahoosay wax u jiraan yani waa tira badanna waa ii qornayd oo lacag iga qaadatay codka markii la gaarayna tiradii imayna soo bixine baashu xagee biyadeys kala yiraahdaa biyadeysku xaguu ka yahay ilaa madaxweynayaashii hore qaar kamid ah markii doorashada ay soo baxday mahad celin raba moogta markii codka laga helay markaas uu waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha la doortay waan u mahad celinayaa intaas waa laakiin xildhibaanada uma mahad celinayo waxaan ugu mahad celinayna way is og yihiin macna bees ay ka dhameeyeen wahay dhalinyaro waxa joogta galmudug yaasha ila soo hadleen markaas madaxweyne wuxuu sheekh kalimooyinka jumcada aad jeediso oo Soomaaliya arrimaheeda waaqicad kaga hadasho galmudug maxaa uga hadli weyse markaas maxaan dhahay galmudug aan kaga hadlay adaad saadaysi taqaan laakiin waxaan ka rabnaa doorasho meesha ka socotee waa la iskhilaafsan yahay inaad kelimo dadkaasi ku wajahan inaad noo dhahdo shaqada ugu diray Soomaa homework adag ugu diray waan ka soo jawaabay laakiin waa inaan la hadlo marka nasiixa waa inaan siiyo agteena sunnada oo ciid waxay naga tahay malaha faralka way ka daran tahay qof walba wuxuu leeyahay salaad ciidi iga tagin waad mahadsantii way fiican tahay ha lagu dadaalo xagaa socota salaad ciid madaxda garoomada iyo masaajidada iyo meelaha la isugu imaanayo jidadka hal la xiro maxaa jira madaxweynaha ciid soo tukanayo oo jumcada mu soo tukado jumcada waajibe ma ciid ayadu waa maalin la yaab leh waa maalin weyn waa ko suuqa bakaaras aan sheegnin oo xamaali oo wax culus wada yaa mid ku joogsaday suxun ugu istaagay waxaan u saday marka saa intuu fiiriyo wuxuu ku yiri war maxaa igu istaagay wuxuu arkay inuu qori oo garabka ku wato wuxuu saaxiib igu joogso laakiin tartiib igu joogso marka dadkan kale waxay ogol yihiin in tartiib loogu joogsado ogol yahay laakiin reer galmudug in lagu joogsado ma yeelayaan hadday isku joogsadaan tartiib isku joogsanayaan suxoog la isku joogsanayaan waxaan u sabariyay oo dawladii hore ay jirtay waxa la sameyn jiray ciyaaraha gobolada marka waxay kamid ahaayeen kuwa ugu xiisaha badan ee dadku ay xiiseeyaan anigu waxaan ku noolaa markaas degmada Baydhabo waxa lagu qaban jiray wareega hore wareega dambana labada soo baxda ayaa xamar imaan jirtay oo gobolada sa way kala qaybsanaan jireen marka Baydhabo waxa isugu imaan jiray marka Jubbada Hoose oo Kismaayo ah iyo Baydhabo iyo Bokool iyo Gedo afartaas inta badan waxa soo bixi jiray marka Kismaayo iyo Baydhabo labadaas finalka isku soo hari jiray kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad ay ku soo kala bixi jireen final kamida finaladii ayaa galab jumca loo balansan yahay in oo la ciyaaro oo Kismaayo iyo Baydhabo ah wadaad masaajidka muadinka ah haduu dhinta Allah naxariistee yaa saano kale markaan khudbada tukanay yu istaagay markaas wuxuu maanta waad ogtiin galabta finalka yaa jira waxa ciyaaraya gobolka Baay iyo Jubbada Hoose waxa la rabaa marka gobolkeena oo Baay faataxada horta marba guuleystay firi waxaan soo wada marka taageerad ma ogtahay gobolka la taageero leh meesha aanu socdo marka waxay tahay galmudug soo hadda marka hadlayno Soomaali markii la fiiriyo galmudug
fursadda ay heleen cid heshay ma jirto reebaadiyaha waxa la yiraahdaa markii oo roob uu da'ayo roobku meesha ay reebaadiyuhu degan yihiin waa meel bannaan ah buuraha iyo kayntana waa geedo iyo buuraha ku yaala roobku markuu da'o meesha ay xaafadu ku taalo guriyo aqal Soomaali ku yaalaan maadaama ay bannaan tahay waxa laga yaabaa inuusan aad roobku ugu diin oo subaxdii markuu waaga bariyo ay kaynta aadaan buuraha iyo markay xoolaha kaxeeyaan xalay roobkii da'ay meesha ay deganayeen uu ku yar yahay meesha ay tageenna oo buuraha iyo geedaha ahna uu ku badan yahay juqraafiga markii la fiiriyo sababta ay saas ku noqonayso waxay tahay buuraha iyo geeduhu waxay soo jiidaan roobka way soo jiidaan meesha bannaanna roobka ma soo jiido saas daraaddeed markii deegaankii hadda laga hadlay waxa la yiraahdaa dhirta yaan la gurin haddii dhirta la guro roobkiina wuu yaraanayaa abaar ayaa meesha ka dhacaysa daaqiina meesha ma aha geedaha la daayo geedaha yaan la gurin juqraafiga wuxuu markii meesha geedaha ay ku badan yihiin roobku wuu soo jiidaya waxa loo tagayaa geedaha hoostooda oo balli noqotay oo biyuhu ay yaalaan reebaadiyo markay arkeen marka meeshan inay biyuhu ku bataan halkan ay ku yar yihiin sababta ay garan waayeen waxay u qaateen hal sabab ay soo saareen waxay yiraahdeen waxay saas ku dhacday geeduhu markuu roobku da'ay habeenkii geeduhu ma hadlaan shib ayay yihiin buuruhuna ma hadlaan inagu wuxuu roobku inoogu yahay waa hadalka aan hadlayno ee guryaha dhexdooda aan ka dhex hadlayno roobku markuu soo daatay habeenkii waxay leeyihiin aamusa roobku duur ha noo maleeye si fiican noogu dege marka waxaan ka wada galmudug waxay idin dhahaan roobku aad hay noogu dee madaxweynaha baan haysanaa rasuulkiisa baan haysanaa aamusa in la dhaho